xalay magaalada muqdisho oo dadkii ka sabarta baxay weerarkaas uu ka mid yahay siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo hoteelka deganaa oo sidii weerarkaasi uu ku bilowday iyo wixii uu soo joogay uga warramay wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan. 12 saac shaahan cabeynay hoosan ku cabeynay qaraxa dhacay isla markii laba kamid oo fuuqay jaranjartii koraan aniga rabay waa ka soo laabtay markii banaankan uga baxnay anagoo kooxda shaaha cabeynaa marka waxay ahaaday qarax baabuur lagu keenay iyo tirayar oo ciidamo soo gashay oo dharka wadata ciidanka kiisa saad waad aragtay ragga soo galay indhahana waad isaarteen sidee isku dhaafteen aniga waxaan koraan ka rabay inaan qolkayga aan ka doondo qoray yiilay marka waa iga hormareen bay iridda markay fuulayeen anaga jeero wareegahan soo galnay iyagana toos markay qaraxa wahsiyeen ba toos ay u soo galeen markaasay nooga hormareen qaraxii koowaad markii uu dhacay aad qaraxa maqasheen dadkii saaxiibada ah ee ku dhawaa dadkii hoteelka joogay cid ay wax gaareen runtii waxay wax gaareen dadkii mataqaanaa qaraxa meesha laga soo galay ku aadanaana laba qofoodeen ku dhimatay inta kale laakiin koray ugu fuuleen dabaqa labaaday ku dileen muqdisho muddo dheer baa deganayd waliba hoteelkan muddo dheer baa deganayd ma islahayd maalin kamid shabaab oo ku soo gali doonaan runtii mar walba waa lagu tashanay laakiin qorshaha meesha aan u dejinay iridda oo ay hadda ka soo galeen oo ay qarxiyeen irid ciid fiican la dhigay heeday marka qorshaha kamid maahayn meeshaas oo kale in la soo jabto karo meelihii loogu talagalo kalaba sooma marin marka ciidanka sidii loogu talagalay markaas uma diyaarsanayn laakiin mar walba waxaanu arkaynaa haday soo galaan wax qiimo aan yeela doonin oo laga adkaanayo sidaasaan aniga mar walba ku tashanay wax qiimaho weyn lama lahayn haday yimaadaan in laga adegiyo leeska caabi karo iyaga horta la dili karo saasaan u fikirey سياسي Salaad Cali Jeelle oo deganaa hoteelkii Naasahab Lodlaba xalal weeraray oo wariyaha iyaga uu warramayay